maxaa ka jira wararka sheegaya in dowladda Shiinuhu ay ka been sheegtay ama ay qarisay tirada saxda ah ee dadka kaga dhintay ama uu ka laayay cudurka caabuqsidaha coronavirus. sidaynu wada ognahay waxaa 4 bilood ee ugu dambeeyay dunida gaarsiiyay khasaare nafeed iyo mid dhaqaale oo aad u xoog badan caabuqsidaha coronavirus. cudurkan oo dabayaaqadii bishii 12aad ee sanadkii 2019 ka dilaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, isla markaana uga gudbay dunida kale ilaa uu ku fiday bogcad kasta oo dunida ah, taasina ay keentay in loo aqoonsado. xanuun safmareen ayaa weli farabaas ku haya nolosha bini'aadamka ee ku nool koonkan ku noolahay. saamaynta uu cudurkan ku yeeshay dunida ayaa u muuqatay in dalalka isku hayaan awoodaha dhaqaale iyo midda ciidan ee dunida oo mid waliba uga faa'iideysanaya arrimo siyaasadeed. arrimahaas ayaa waxaa ugu horreeya in dalalka qaar ay ka been sheegaan tirada saxda ah ee cudurkani ka waxyeeleeyay bulshadooda, halka ay sidoo kalena buunbuuninayaan tirada dadka uu ka waxyeeleeyay dalalka kale. haddaba aynu tusaale u soo qaadano dalka budhiga uu ahaa bilowga cudurkan oo waddanka Shiinaha, sida ay sheegayaan wareedyada sida joogtada ah uga soo warramaya dalka Shiinaha ee ku hadlaya xogaha ay soo gudbinayaan xukuumadda shuuciga ee waddanka Shiinuhu ayaa sheegaya in tirada uu ku dhacay cudurkan ay gaadhayaan in ka badan 82,000 oo qof, halka ay ku nafwaayeen ku dhawaad 4,000 oo qof, halka ay sidoo kalena ay ka soo kabteen ku dhawaad 77,000 oo qof oo Shiinaysi. haddaba xogaha shakigooda leh ee dunidu ku baraarugtay isla markaana muujinaya wareedyo lagu kalsoonaan karo xaqiiqanimadooda ayaa ah in shirkadaha isgaarsiinta dalka Shiinaha ay sheegayaan in ka badan 22 milyan oo qof oo isticmaali jiray moobiladooda iyo khadadkooda adeegyada isgaarsiinta la laayahay. taasina ay ka macno dhigan tahay inuu dadkani uu laayay xanuunka caabuqsidaha coronavirus. xogaha ay shirkadahan isgaarsiinta dalka Shiinuhu sheegayaan ayaa la hayaa cadeymo muujinaya in intii u dhaxaysay bilihii January ilaa bishii February ee sanadan 2020 ay ahaayeen bilihii ugu darnaa ee dadka ugu badan uu ka laayay dalkaasi. xilligaasi oo dharaarihii ugu xumaaday cudurkani meesha khatarta la mariyay bulshada ku nool dalka Shiinaha, gaar ahaan magaalada Wuhan oo ay ku nool yihiin in ka badan dad lagu qiyaasay 12 milyan. xogaha ay daabiceen isla markaana ay qaar ka mid ah sharaa'iga isgaarsiinta dalka Shiinuhu ay la wadaageen warbaahinta dunida ayay ka mid yihiin. shirkadda China Mobile Ltd waxa ay sheegtay in ka badan 7.25 milyan oo qof oo isticmaalayay shirkaddan kaadhirkeeda la laayahay. shirkadda kale ee Unicorn Hong Kong waxa iyana sheegtay in ay khadka ka bixeen ku dhawaad 7.8 milyan oo qof oo isticmaali jiray khadkeeda isgaarsiinta. sidoo kale shirkadda saddexaad oo ah China Telecom Corporation ayaa sheegtay in la laayahay 5.6 milyan oo qof oo isticmaali jiray adeeg bixinta khadka isgaarsiinta. sidaasi waxaa sheegtay wakaaladda wararka AP oo soo xiganaysa xogaha kala duwan ee bixiyeen shirkadahaasi. dhanka kale khubarada ku xil dheer arrimaha isgaarsiinta iyo nolosha bini'aadanka ayaa muujinaya dareena suurtagalnimada ay sheegayaan in xogahan ay xaqiiqo yihiin. sidoo kale hay'adaha mukhaabaraadka dunida kuwooda u dhuntoloola saamaynta kala duwan ee uu cudurkan ku yeeshay dalalka Shiinaha ayaa sheegaya in xogahan yihiin kuwa dhab ah oo lagu kalsoonaan karo.